على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي baa mahad iskale walaalayaal maantana waa maalintii saddexaad ee mu'tamarkeenii koowaad ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee Germany muxaadaradeena maantana waxa weeye ciwaankeedu insha Allah ta'ala wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun qolkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala baa u cinwaan ah oo macnaheedu yahay ha isliidina hana murugoonina adinkaa sarreyn haddii daa shardiyada insha Allah ta'ala iyo mikrofoonka waxa uga tagahayaa sheekheena muxaadirka ah Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil falyatafadal mashkuuran بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال تعالى في محكم كتابه قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين أخوتي في العقيدة درسك كان walaaluhu ku talagaleen inaan maanta ka hadlo waa aayad qur'aan ah oo fi suurati ali imran ku jirta aayada 139 ee ali imran aayadatan iyo dhowrka aayadooda ka horeeyay iyo aayada ka dambeeyaba waxay u ahaayeen tacqiib waxay soo degeen waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu ay ka soo baxeen dagaalkii Uhud la oran jiray sidaynu wada ogsoonnahayna dagaalkaasi muslimiintu markay galeen dhib badan baa soo gaadhay waa galeen muslimiintu dagaalka kan iyagoo kooxa dhowr boqol oo iyaga ka mid ah munaafiqii baa kala hadhay Cabdullah ibn Ubay ibn Salul la oran jiray kun qof meelahaas iyagoo ah ninkaas safkii khalkhaliyay 300 dad ku dhadhow buu la laabtay 700 soo hadhay baa dagaalka galay nabigu calayhi salaatu wasalaam koox buu meel saaray buura kontaneeyanina wuxuu yidhi halkaa fuushanaada ha soo degina wax kasto haddaa aragtaan shimbirahoo madaxayaga haadoo nagu dhacaysa haddaa aragtaan ha noo imanina idinku halkaa ilaaliya dagaalkii markuu dhacay markiiba gaaladii waa lala kacay waa dhawr jeediyeen dabeetana nimankii buurta saaraaba waxay yidhaahdeen waryaadheen dee nabigu meesha fuushanaada wuxuunbuu uga jeeduun de inaan cidi xagga dambe iyo meelahan laga imanine gaala waa aragtaanoo jabe eh haniimada yaan laynooga dheerayn inaan xoolaa wax ka doonana bay idhaahdeen cidi waxba noole eh ninkii amiirka u ahaabaa wuxuu yidhi aniga nabigu wuxuu igu yidhi halkaa fadhiyo ka soo kici maayo qolo kale waxay warraga tawarada meesha maxaynu ka qabaan waa ilaalinayna mar hadii gaaladiiba jabtay qanimadan wax ka boobina waa laga soo cararay ninkii amiirka ahaa Khalid bin Walid oo gaal ah oo koox fardoolaya wata oo meel uu ka gala dagaalka balaa ayaa arkay fakadii in qoladii ka soo daadegtay dabeetana soo daba maray ninkii buu dilay amiirkii intii meesha ku harsanaa dabeetana xagga dama muslimiinta laga soo galay dagaalku gelinkii hore u muuqday inay muslimiintu guuleysteen oo nimankii gaalad la jabiyay oo xoolahoodii la guranayo ayma marqura labada dhan la isaga dhawaaqay dabeetana muslimiintii waxa la galiyay meel yar oo xidhiidhiya waa la laayay dagaal xoogan baa dhacay waxay u muuqdeen muslimiintii marka kan in la jabiyay dadkii waxa ku dhacay dagaalkii oo dhexda maraya ayaa ibliis ka dhex qayliyo wuxuu yiri inna muhammadan qad maat qad qutil nabi muhammadna la dil
saxaabadii markay maqleen nebigiina la dil bay dhaaheen oo maxaa hadhay dahdaa tii ummadda nebigeediiba dhintay ma war baa u hadhay raggii badh way jabeen oo orodkay ka carareen meeshii madiinay galeen badh way iska fadhfadhiisteen de maxaanu dagaalamay haddii nebigiiba la dilay meel bay iska fadhiisteen badh waa iska sii mintidayeen sacd ibnu rabiic axadu saxaaba soo maray niman saxaabadii waaweynaa ka mid oo meel fadhiya wuxuu ihi war maxaa dhacay waxay dhaheen dee nebigii la dil oo nebigu hadduu dhintay buu yihi wuxuu ku dhintay ma idina ku dhimataan maxaa meesha la fadhidaan wuxuu ku dhintay nebigu ma idina ku dhimataan maxaa meesha la fadhidaan gaaladii nebigii iyo 7 saxaabiya la joogay markii dambe oo meel dhinac u gortay bay soo gaadheen waryaa inaga dhicinaya saxaabadii baa kolba mid u baxaa nimankii baa la laayay ala kulli xaal jab weyn baa muslimiinta soo gaadhay marka sidaa loo eego laakiin jabka kale wuxuu ahaa daris ilaahay uu barayay subxaanahu wa tacaala daris nolosha ka mid ah noloshu guul qura maaha ilaahay wuxuu leeyahay qur-aanka watilka alayaamu nudaawiluha bayna annaas waa maalmo dunidu waanan isugu keen warwareejinaya guusha waxbaa laga bartaa oo jabka waxbaa laga bartaa waa daris nolosha ka mid ah muslimiintii dhibtu waxay gaadhay xad uu tilmaamo ama xad aynu odhan karno nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam koofiyadii madaxa kaga jirtay madaxay ka gashay meelaha kan waa ka muday ilkahan badh baa laga riday ilig baa laga jebiyey salaadii duhur maantii dambe maalintaasi sarajooga wuu ku tukan kari waayey fadhiguna buu ku tukaday bale buurta uxud markii loo sii baxayay meeshii buu fuuli kari waayey ilaa ay noqoto in loo gargaaro si uu fuuli karo adeerkii xamse waa la dilay rag waaweyn oo 70 saxaabadii waaweyneed ka mid ah ayaa dhintay jab weyn baa muslimiinta soo gaadhay jabkaa dabadeed baa ilaahay qur'aan badan soo dejiyey qur-aankaa ka soo degay suuratu uxud jawaanib badan oo nolosha ka midu ka warramaya oo si fiican wax laynoo tusinayo casrigan aynu joognana runtii u baahan si wanaagsan loo akhriyo dadku si fiican u fahmaan haddaba qayb ka mid ah oo aayadani ka mid tahay haddaynu tilmaamno awalan ilaahay wuxuu ina leeyahy subxaana wa tacaala qad khalat min qablikum sunan fasiruu fi lardi fanduruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin war dunidu hadda ma bilaabmin baa ilaahay leeyahy idinka hortiin taariikh baa jirta dunida soo jireena ee bal dadkii hore kibrey ama alla beeniye ama bal meesha ku dambeeyeen eega dunidu maaha wax hadda bilaabmay baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala idan taariikhdu waa tajaaribtii ama waa waayaragnimadii bini aadamkaee dhabta ahayd oo u baahan qofku inuu si fiican intuu u daraaseeyo wax badan lagala soo baxo oo wax badan laga faa'iidaysto kadib baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa bacda aaya walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum laclawna in kuntum muminiin muslimiintii jabtay ee caynkaas ku dhacday ayaa ilaahay wuxuu yidhi walaa tahinuu ha daciifina ha liidanina liidnimaya idinku dhicin walaa taxzanuu ha murugoonnina oo murugaya idinku dhicin waantum laclawna in kuntum muminiin idinka koreeya baa ilaahay leeyahy subxana wa tacaala haddaad tihiin muminiin baa la yidhi aayaadkani waxay soo degeen iyagoo muslimiintu jabeen oo waxaasoo dhibi soo gaadhay adugu waxaad qiyaastaa iminka haddii dawlad inta dagaal lagu qaado ilaa la yidhaahdo madaxweynihii wuu dhintay maxaad u malaynaysaa dagaalkii lasla galay askar lagama warramayo janano iyo meelaha ma joogte madaxweynihii baa la dilay haddii la yidhaahdo waddanka sidii dagaalka loogu waday yani waxaa la dareemaya inaan waxba ka soo hadhin xad bay muslimiintu joogeen lagu dhawaaqo la yidhaho xataa nabi maxamed baa la dilay warkaahi uu soo baxo ilaahi subxaana wa tacaala waa ka u tilmaamaya markaa balaayooyinku in daraaso laga qaato wamaa muxammadun ilaa rasuulu qad khalat min qablihi rusul afain maata aw qutila inqalabtum cala acqaabikum waman yanqalib cala caqibayhi falan yadura allaha shaya wasayajzi allahu shaakiriin ilahay wuxuu leeya wamaa muxamed war nebi muxamed ma aha rasuul rasuulladii ka horeeyey hortii ay rasuulla tageen mooyaane ee haddii la dilo ama uu dhinto miday doontaba ha u dhacdee madiintaa ka noqonaysaan baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala yani waxaa ilaahay tilmaamaya xataa nebiga ugu weyne hadduu dhinto islaamku inuu jirayo
qofka muslimkii markaa maaha qof ashkhaas ku xidhan aw hebel haddii la dilo inay dunidu kula madoobaato ama madaxweyne hebel haddii la dilo inay dunidu kula madoobaato ama ma aha qofka muslimka waxa la barayaa mabaadi inuu ku xidhan yahay rabbina uu ku xidhan yahay subxaanahu wa tacaala idan aanu jabin saa awgeed ayaa ilaahay wuxuu mu'miniinta barayaa laleeyahy war xataa nebi moxamed haddii la dilo ama se uu dhinto miyaad dib u noqonaysaan baa ilaahay leeyahy haddaad dib u noqotaan falan yadur allaha shay ilahay hadda waxba maydan yeelin baa laleeyahy subxaana wa tacaala qofka mu'minka ah dhibi way soo gaadhi kartaa laakiin waxaa laga rabaa kow athabaat cala almabaadi dadku inay mabaadi'dooda iyo diintooda iyo caqiidadooda haystaan laba qadarka in lagu sabro saddex athiqatu billaah ilaahay subxaanahu wa tacaala in kalsooni lagu qabo afar waxaad u baahan tahay tajaaribta nololeed inaad daraasayso ogaato nebiga calayhi salaatu wasalaam oo maka jooga oo saxaabadiisii la laynayo la dhibayo buu dhex joogay wuxuu dhex joogay nebigu calayhi salaatu wasalaam iyadoo abubakar inta la tumo cadceedda la dhigo dhagaxlaabta laga saaro si kasta marka loo cadaabe toorjar loo dhammeeyo ayaa inta xadhig yar lagu xidho ayaa yaryarka loo dhiibi jiro meelaha la warwareegi jireen waa nin muslima oo xadhig ku xidhan yahay oo toorjar ku socdo oo meelaha lala wareegayo nebiguna joogo waa arkaya maanta may bilaabmin iyadoo muslimiintu waa joogaan inuu daciifo ama dad la laayo ama xabsi la gala ama la iscadaadiyo ama la istumo taariikhda nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxay caan ku tahay waxa weeyaan nebiga haddaad taariikhdiisa daraasayso noloshoo dhan baad waayo arag u noqonaysaa waayo nolol nooc ka midoo aanu soo marini ma jiro isagoo la tumayo wuu soo maray inta carruurta iyo dumarka lagu diro dhagaxa inta markuu qabtay maxaa ku dhacay طaaif dhagaxba ayaa dumarka iyo carruurta lagu diro dhagaxbaa lagala daalay dhiiggii ka yimi isagoo kabihiisa ka horayaan buu iska soo noqday wuu soo maray isagoo raggiisa lagu horlaynayo lagu hortorjargaraynayo la tumayo wuu soo maray isagoo isaga dil lala raadinayo la eryayo la caydhinayo uu godgelayo kolba wuu soo maray isagoo xoog badan oo faatixo 10 kun oo askari wato qabsaday magaaladii shalayta lagu tumayey ee laga firdhiyey wuu soo maray isagoo madaxweyne wuu soo maray isagoo gaajooday oo baahday wuu soo maray isagoo gaajo daraaddeed beerka dhagax ku xidhay saxaabi baa u yimid nabiga wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisii tumarada beer ka qaaday ayuu yidhi bal waxaa dhibna haysataane hal dhagaxa buu ku xidhayay nebiguna tiisuu ka fayday labuu xidhnaa nebigu isagoo gaajo daraaddeed 2 dhagaxa xidhay wuu soo maray isagoo gurigiisa aan 2 bilood oo isku xiga dab laga shidin daba ka bixin wuu soo maray nolol qadhaadhkeed iyo wax kastoo ay leedahayba idan qofka taariikhda nebiga daraasaya calayhi salaatu wasalaam noloshuba way la fududaanaysaa si aada bay ula fududaanaysaa isagoo nebigu jiifa calayhi salaatu wasalaam kacbada dhinaceeda hadhka kacbada isagoo iska jiifa oo dangiigsan ayaa waxa u yimi saxaabi la yidhahdo khabaab ibnu larat dabeetana wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waxa maad ilaahay noo baridid rabbi subxaana wa tacaala ha noo gargaare wuxuu ka cabanayaa maad arkayn buu leeya waxaa dhib iyo mashkiladna haysataa alaa tastansir la alaa tadcu la maad ilaahay hiil noo weydiisid maad ilaahay guul noo weydiisid waad aragtaa waxaa dhibna haystee nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu soo kacay ayuu wuxuu ku yidhi isagoo cadhaysan buu wuxuu ku yidhi laqad kaana man qablakum layumshatu bimashaati alxadiidi maa duuna cidaamihi min laxmin aw casab waar idinka kuwa idinka horreeyey buu nebigu yidhi gafaadh bira baa lagu faydi jiray ilaa lafta iyo hilibka la kala saaro qof bini aadamoo la toorjargaraynayo dogod yar loo qodo ayaa gafaadh bira lagu faydaa ilaa hilibka iyo lafta la kala saaro qaar ka mida buu nebigu yidhi waa god inta lagu rido ayaa miinshaar hagso baashan wax lagu miinshaareeya inta halkaa laga saaro ayaa 2 loo kala goyn jiray ilaa 2 u kala dhaco waa nooc torjar ka mida waxaasoo dhammi buu nebigu yidhi diintooda kamay celin jirin
ilaahay baan ku dhaartay buu nabi maxamed leeyahay ilaahay diintan wuu dhammaystiri doonaa ilaa iyo uu ka socdo raakibku min Sanca ila Hadramaut ma yakhaafu illa Allah ka lugaynaya uu lugeeyo Sanca ilaa iyo Hadramaut inta u dhaxaysa isagoo aan ilaahay mooyaan cid kale ka baqaya jirin riwaayaadka qaarkoodna waxay sheegayaan waa dhiba ala qanam iyayga adhigiisa ka cishada un mooyaan laakiin nabigu muxuu yiri walaakinakum tasta'jiluun waa degdegaysaan haddun baa arkaysaan war taariikhda dunida dib uga hore way qofku ma aha inuu instantaneous nolosha marka la qiimeeyo haddun lama eego hadda waxa suurtagal ah inuu gaalku ka xoog badan yahay ka tiro badan yahay laakiin nolosha waligeed saan ahaan mayso saadaradeed buu nabigu wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam war nolosha bal dib u eega shidada iyo dhibaatadu faa'iidooyin badan oo ku jiri kara wax badan oo qofka laga rabo baa jira laakiin waxaynu u baahanayn in dhowr shay fahmno ilaahay wuxuu leeyahay wa antumul a'launa in kuntum mu'minin hadda mu'mintiin idinka koreynaya ko waxaynu u baahanahay inaynu fahamno cid aad rumaysay waa alle subhanahu wa ta'ala ilaahayna waa al-qawiy al-aziz إلهي القرآن هو حكوت المامية أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد أليس الله بكاف عبد ورلهي ميانو كف اللين بألا لي أدوميسا ميانو إلى علم كريم أما سأل إذن شيئا مركا كوات سيئن الدين تطبيع عديد أوفهنه نبي محمد عليه الصلاة والسلام مركي مشكلة قبضتي dhibtu haysatay ayaa habeenamada kamida alla dheelmiyay Makka laga qaaday buraaq bahal la yiraahdo la saaray dabeetana waxa la geeyay Bayt al-Maqdis Makkiya Bayt al-Maqdis intay soo jiraan intaasoo kilomitir bay soo jiraan ilaa intuu Makka ka qaaday ayuu Bayt al-Maqdis geeyay Bayt al-Maqdis الصخرة ماشي الله يرضى انت دغخا لا geeyay hadana halka laga dhoofiyay dabeetana fawqa 7 samaawaat wala qabatsi cirka loo bixiyay quraanka ilaahay wuxuu leeyahay subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatihi xumakahu fan Allah subhanahu wa ta'ala adoomkiisi Makka ka keenay ee qabatsiyay maxay بيت المقدس كدبنا waxa dhacay mi'raaj oo ay la dheelmiyo shajarat al-muntaha markii la marayay buu jibriil yiraahdo anagu halkan ma dhaafi karno kadibna nabiga kor loo sii qaado ilaahay wuxuu leeyahay linuriya min ayatina min ayati allahi al-kubra ay la soo tusay ilaahay awoodiisa wax kamida iyo makhluuqaadkiisa la soo tusay isla habeenkii baa la soo celiyay oo la keenay Bayt al-Maqdis isla habeenkii baa la soo celiyay oo la keenay maxay Makka waa distance inta leeg آلاف بل ملايين الكيلومترات ولا قنطال با صعده dunida waxa yaalo dhan technology dunida yaalo dhan ma socdo technology dunida yaalo dhan waxay xidigan yarna ma gaadho samaa dunya ma gaadho nabi maxamed waxa la qabatiyay meel intaba ka fog habeen kaliyana lagu wada geeyay waana la soo celiyay hadii waahida mar labaadna aan ku noqdo hadaba siirada mar kale markan kale aan idinku celinaya maxay tahay nabi maxamed alayhi salatu wasalaam gaala intii heshiisay waxay tiri waa dilaynaa go'aana baa la qaatay qabaa'ilka aanu qaybino 10 inaan la soo saaro waa kaasi dabatana seeftaha lagu wada kulmiyo reer bani haashim dhiiga cid ay u raacaan markay garan waayaan carab oo dhan laba dagaalami karaan waxa maktooda ay aqbali doonaan deysna hayna dhaafo maktana la qaato ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu faray inuu hijroodo nabi maxamed wixii awoodiisa ama awood bini aadam wixii ahaayo dhan buu sugay sagii abi bakar laba neef oo la fuulabay si meel sii daajisteen oo dhigteen nin gaala ayay kireysteen oo dhul mareena oo wadooyinka kala yaqaana
cunay xidhxidheen safarkaasi ay ku sii geli karaan. goor aan dadku soconin si aan loo arag buu ka baxeen guryihii si ay u raadgataan. buur bay fuuleen oo haddaad saxaaraa lugayso dee raadkaaga markiiba waa la helayayo meeshaad ka baxday. may u bixinba xaggii saxaaree buuraleyday u baxeen koonfura iyadoo madiine ay waqooyi xigtay xaggii waqooyi may qabana koonfur bay qabteen si raadraaco xaggaa markuu ka doono aan hore loogu helinay iyana xaggan u socdaan si aan loo raadin karin calaykum asalaam waraxma ayay buuraley galeen si ay u dhuuman karaan buu 3 habeen oo isku xiga god ku jireen. godkaasay gaaladu intaysa soo dul taagtay ayaa abubakar wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisii ina arkay ma danuka bitnayni allahu thalithuhuma abu nabigu oo maxaad u malaynaysaa laba alla ku saddexiye laa taxzan ha murugoon ilaahay baa inala jireen laba alla uu ma coodayay ma guul daraystaane ha murugoonin. godkii bay ka baxeen dhexda markay marayeen ayaa warka carabi markii ay weyday ayay waxay ballan qaaday ninkii xayan aw mayita madaxa nabi maxamed iyo abubakar ciddii keenta 100 halaadoo geel cascasa in madax kasta laga siinayo. carabtii dagaalyahanada ahayd ee kaymahoodii aymahooda iska joogtaa warkii soo gaadhay waa ka tilmaamaya saxaabigii la odhan jiray axad saxaaba ka mida alashjaci ninkii ahaa suraaqata bnu malik alashjaci wuxuu leeyahay anigoo naadigii reerkayga halkii lagu shiri jiray anigoo fadhiya ayaa midi soo galay buu yidhi markaas wuxuu yidhi halkaa 2 nin baa sii socday oo aan u malaynayo maa uraah ilaa muxamed iyo saaxiibkii inay yihiin mooyaane cid kale u malayn maayo. markaasaan idhi buu yidhi war waxba maad arag war waa hebel iyo hebele waxba maad arag iska fadhiso. waxaan islahaa buu yidhi dhiigooda yaan cidi kula qaybsanin 200 halaad keligaa heshide. dabeetana jaariyad buu hoosta ka diray wuxuu yidhi faraskii iyo warmihii ii soo qabo. faraskii baa loo qabtay warankii wuxuu yidhi markaan iyaga ka baxay gurigii tegey waxaan sidhi buu yidhi waranka haddaad qaadato cadceeddu markay ku dhacdo walacwalaacdiisa meelaha laga arkiya ciidda inta neefka u geliyaan jiiday buu leeyahy waxaasoo dhan wuxuu samaynayaa dhiigooda yaan cidi kula qaybsanin aad adigu qaadatid xoolaae. waa kii ilaahay dhulka la gooyey faraskiisii ee suurtoobi weyday nabi maxamed siiba ku nabadgalay. mas'ala waaxida baan markaan rabaa inaan tusiyo. nabi maxamed wax 500 kilomitir ka yar dhowr iyo 10 maalmood buu socday. makiya madiina inta u dhaxaysa dhowr iyo 10 maalmood buu lugeynayay oo godgalayay oo haraadayay oo lugeynayay oo soconayay oo la eryanayay oo u baqayay. mar kalena habeen qura ilaahay intuu dhoofiyey maka inta laga dhoofiyey la geeyey maxay bayt ilmaqdis laga dhoofiyo xaggee la qabadsiiyey samada la qabadsiiyey. maxaa ku jira marka ilahay miyaan awoodi karin markaan gaaladuba ay rabshada waday inta maka lagala boodo in la yidhaha war madiine fadhiiso maxaabay ku daba socsocon. waxay dhahdaan ta hore waa maxalu tashriif linuriyahu min aayaatina alkubra. waa la sharfayay nebi maxamed inuu aayaadka alle soo arko ilaahay baa xooggiisa wax ka tusay. tanina waa tashriic baa la leeyahy waa waxa layna rabo inaynu ku dayanno innagaa layna itixaamaya ilaahay awooduma waayin ilaahay dadkan kan wuxuu odhan lahaa gaaloo dhamay dhimo waa dhiman lahaye ama qasab ku islaama waa islaami lahaye wahuwa calaa kulli shayin qadiir biyadihi lmulk alaysa allahu bicasiizin dintiqaam alaysa allahu bikaafin cabda. ilahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya war ilahay miyaanu wax walba awoodin miyaan gacantiisa wax waliba ku jirin miyaanu wax walba samayn karin dabcan wax walba samayn kara. imise qoon baa ilahay dhulka la gooyey ilahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya qaaru kor u qaado dhulka inta lala gooyey haddana intay soo socdeen warmo dhagxan lagu garaacay naarta laga keenay dabeetana dhulka lagu abuuray qowmu luut. qaar baa alla tilmaamayay sheeganaya ana rabbukum ulaclaya maa calimtu lakum min ilaahin hayri oo badda inta ilaahay kala jeexay markuu soo galay la isugu dhirbaaxay oo ilaa hadda maydkiisa yaallo oo ilaahay yidhi baktigaagaa reebaya si aad dadka dambe waana ugu noqoto. qaar baa ilaahay inoo tilmaamay lagu qayliyey oo qaylo ku dhintay kaanama acjaasu nakhlin khaawiya. qaar baa alla tilmaamaya sayxa qaar baa alla tilmaamaya matar uu lagu qarriyey. yacni ilaahay wuxuu inoo tilmaamay ummad dhan oo la baabiiyey. macnaheedu waa maxay? macnuhu waxa weeyaan koow qofka mu'minkii wuxuu rumaysay war adduunkan waxaan ilaahay rabaynay kama dhaco
waxaan alla idmini ma dhacaan nin xoog weeye nin xoog yaraytoona ma jiro laakiin inaga layna itixaamaya ilaahay waa awoodi karaya diintiisa inuu u gargaaro biduuni ayi shay kun fayakun baa awoodiisa waida araada shayan an yaquula lahu hadduu wax doonaya ilahay wuxuu idhahdaa kun fayakun uu ahaanaya laakiin waxay culammadu yidhahdaan innagaa ku jirna mawduc alimtixaan idan adigaa lagaa rabaa mushkilad kastoo kaa hor timaada imtixaanka ma ku guulaysanaysaa mise waad ku dhacaysaa adaa lagaa rabaa mas'alo kasta ma sax baad uga jawaabtay mise qalad baad uga jawaabtay adaa lagaa rabaa mashaakilka soo baxay o dhan inaad si saxa uga jawaabtid saa daraaddeed ayuu rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ina leeyahy walaa tahinuu war ha murugoonina ha liidanina oo walaa taxzanuu ha murugoonina waantum laclawna in kuntum mu'miniin wax laynaga rabaa markaas mahma aad dhib arkayso iyo mushkilada ay kuu muuqato inaad dareento sabirku inuu yahay cuddada ama qofka mu'minka ah waxa noloshiisu ku jirto hadday nicmo ku soo martana inaad ku abaal shukri naqdid hadday dhibi ku soo martana inaad sabirtid sabirku waa cibaadatu daraa wa ciddati lmuslim xiina nuzuuli lbalaa waa cibaadada qofka muslimkaa laga rabaa inuu barto marka dhibtu jirto saa awgeed baa ilaahay wuxuu leeyahy in tamsaskum xasanatun tasu'hum wain tusibkum sayi'a yafraxuu biha wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shaya ina allaha bima yacmaluuna muxiit ilahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala war haddii wanaag idin haleelo munaafiqiiyo gaala way ka xumaanayaan wanaagga idin haleelay haddii xuma idinku dhacaanna waa ku farxayaan baa ilaahay yidhi laakiin ilaahay muxuu ina leeyahy wain tasbiruu watattaquu haddaad sabirtaan sabirkii loo baahnaa adkaysataan laba alla kacabsigii loo baahnaa wixii waajibaad ee lagaa rabay inaad samayso aad samaysaan laa yadurukum kayduhum shaya baa ilaha yidhi waxay xadhig mareegayaan o dhamme waxba idin yeeli maayaan rabbi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahy latublawunna fii amwaalikum waanfusikum walatasmacunna min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wamin aladiina ashrakuu adan kaiira wain tasbiruu watattaquu faina dalika min casmi lumuur waa laydinku itixaamayaa baa ilahay leeya xoolaha nafta dhib baa idinka soo gaari doonta wala tasmacunna baa ilaahay leeyahy ka maqasheen oo ka maqasheen oo ka maqasheen kuwa gaaloobay carab xumo badan baa alla leeyahy subxana wa taala af xumo badanoo laydin yidhaahdana waa maqli doontaan baa ilaahay leeyahy wala tasmacunna min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum iyo wa min aladiina ashrakuu adan kaiira adyad tiro badan baa ka maqli doontaan baa ilaahay leeyahy laakiin ma la waajibu calayna wain tasbiruu watattaquu baa ilahay yidhi faina dalika min casmi lumuur haddaad sabirtaan oo adkaysataan idan meesha waxa yaala qofka mu'minkii horta waa inuu rumaysan yahay allahu subxaana wa tacala inuu yahay huwa alqawiy biyadihi lmulk wahuwa calaa kulli shayin qadiir lahu ma fi samaawaati wama fi lard inuu alle subxaana wa tacaala dunidan xukumo marka hore waa inaad rumaysaa iimaankay ka mid ahay inaad garato dunida tani inaanu ilaahay mooganayn walaqad khalaqnaa fawqakum sabca طaraa'iqa wamaa kunaa can اlkhalqi haafiliin baa ilahay yidhi war ma moogani baa alla leeyahy subxaana wa tacaala waxaanaan abuuray qofka mu'minkii markaa waa inuu rumaysan yahay inaanu hadduu alla ku tiirsado inaanu marnaba dhibi soo gaadhin saa daraaddeed buu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam markay ugu adkayd wuxuu leeyahay laa taxzan ina allaha macana ha murugoonin buu yidhi ilaahay baa maceena ah faanzla allahu sakiinatahu calayhi waayadahu bijunuudin lam tarawha wajacala kalimat aladiina kafaruu sufla wakalimat اllahi hiy alculya wallahu casiizun xakiim ilaahay baa xasilooni ku soo dejiyey baa alla leeyahy subxaana wa tacaala waayadahu bijunuudin lam tarawha baa ilahay yidhi ciidamo idinku aydan arkaynin baa ilaahay ugu hiiliyey kownkan ilaahay baa maamulo markaa qofka mu'minkii marnaba ma aha qof dhib dareema waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy cajaba liamri lmu'min arrinka qofka mu'minkaa yaab leh ina amruhu kulluhu lahu khayr
wax kasta uu sameeyaba khayr bay u tahay buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. waayo wuxuu nabigu leeyahay hadday nicmo noqotana wuu sabray, wuu ku mahad celinaya, shakar. hadday noqoto buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam dhibaatana wuu sabraya, labada goormaroo khayr buu helayaa buu nabigu leeyahay calayhi salaam. qofka mu'minkii markaa ilaahay ma awood waayina adaa lagu itixaamaya. waayo ilaahay muxuu ku tilmaamaya kuwa kale? ilahay wuxuu leeyahy mathalu aladiina ittakhaduu min duuni illahi awliyaa kamathali alcankabuuti itakhadat bayta waina awhana albuyuuti labayt alcankabuuti low kaanuu yaclamuun. mathalu aladiina ittakhaduu min duuni illahi awliyaa, kuwa ilaahay cid aan ahayn hiil iyo qaraabanimo iyo tol iyo gargaar ka doonay baa ilahay yidhi tusaalahoodi iyo maahmaahadooda waxa weeyaan kamathali alcankabuuti itakhadat bayta, waa caaradii guri dhisatoo kale baa la yidhi. guri caara muxuu celiyaa? guri caara waa waxba ilaahay khayrkii aad ku tiirsato, ama maraykan ku sheeg ama mid kale ku sheego, waa guri caaro. in guri caaro ku tiirsan baata. ilahay wuxuu leeyahy cidda aniga ay dhinac marta ee ilaahay khayrkiis tidhaahdaa cizi iyo xoog iyo ka doona tamar, kamathali alcankabuuti itakhadat bayta waina awhana albuyuut labayt alcankabuut baa ilahay yidhi. guri waxa u liita u jilicsan guri caara baa alla leeyahy subxaana wa tacaala. macnaha meesha yaalla muxuu yahay? qofka mu'minkaa dannigu ilaahay ka qaba waa inuu fiican yahay. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala murugayo idinku dhicin iyo ducfi iyo liidasha toor ah. mu'min ilaahay ku kalsoon noqo. waxaynu u baahanay marka ummadda maanta muslimiinta ah ee caalamka ku nool, waxaad moodaa dad badan inay hami jabeen, niyad jabeen, xagga muslim baa lagu dilaya, xagga muslim baa lagu dilaya. almashkila cindana awalan ilaahay waa awoodaa waxba inuu maalin qura kiciyo, laakiin innagaa layna itixaamaya. innaga imtixaankani xaguu ka yimi? bal aan hal xadiid akhrinoo kuwa nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam. nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii tawbaan warinayay wuxuu yidhi yuushiku lumamu an tataaca calaykum kama tadaaca alakalatu ila qascatiha faqaala qaa'ilu wamin qilatin naxnu yowmaid qaala bal antum yowmaidin kahiir ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت. حديث كانوا فيرسو نبي محمد عليه الصلاة والسلام باوحيري waxaa la arki doonaa ama waxa dhowaan ah, waxa dhici doona ummadaha dalaalka iyo baadinimada ku sugan ee dunida intay isugu keen yeedhaan sida dadka xeedhada leh ay isugu yeedhaan. haddii dad casuumadu sameeyo ood casuumada ugu yeedho markaa dadkaad casuumaysay oo dhan, dee waa casuumad adiga lagu sameeyey, waana wax fudud inaad maxay qaadato cunto ka dheragto saa doonto u googoosato. nebi maxamed baa wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waxay ku dhadhowdahay inay umamka dunidu intay isugu kiin yeedhaan tusaalihiinuu noqdo sidii xeedhe la wadaagaya midba gacantiisa gelinayo. caalamka maanta u fiirso, caalam alislaami baa inta la isugu yeedhay ama naatadhe ama warsadhe ama mid kale dhe ama dabadhilif yaroo dunida meel kaga noolba dheh, inta la isu wada tegey ayaa kulli waaxidin yadli bidalwi, mid 150 askari geeye mid ka badan geeyaba, mid waliba intuu boobi karaa buu boobay. waxoodaa la qaataa, waa la lahayaa, waa la boobaa, waa la gumaystaa, waa la dilaa. waa wuxuu nebi maxamed ka warramaya calayhi salaatu wasalaam. saxaabadii way yaabeen. markaa waxay maskaxdooda ku soo dhacday talo waxarisay u dhacay ma marbay muslimiintu inta yaraadaan wax yar oo dabeetana la boobo ayay noqon doonaan. qaaluu wa min qilatin naxnu yowmaidin, oo waxaas ma waxay ku dhacayaan bay yidhaheen ilaahay rasuulkiisiyo ma intaanu yaraano oo dadka kale bataan ayaa deena nala dafaya markaasoo xabadxabadna loo qabanaya. qaala bal antum yowmaidin kaiir buu haddana nebigu yidhi maya maalintaasi waa badantihiin buu nebigu yidhi, tira yari maaha. tirakoobka muslimiinta inta kor loogu dhawaaqaa waa 1,300,000,000 oo milyan. dad badani waxay qabaan tirakoobkaasi inuu qalad iyo 2 bilyan inaanay ka yarayn. laakiin ayankan
bilyan dad ka badan oo bini aadamah in inta haddana la isugu yeedho nebigooda kolba mid 5 milyan uu caayo ama mid ka sii liitaa uu boobo ama qaado ama hagardaamaya ama isugu tagaa waa dacfi maxaa keenay saxaabadii way rumaysan kari waayeen waxay dhaheen miyaanu yarnay meema yaridin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaakinakum guhaa'un ka guhaa'i sayl buu nebigu yidhi laakiin waxaad tihiin daad xoorta daadku qaado oo kale ma yaridine daadxoorta waxaa la ydhaha xashiishka iyo xumbada iyo waxaan markuu daadku meel jabsade u wado xoorkan iyo xashiishkan iyo uskagan saaran uskagani meel laguma socdo meeshuu iska yaallay wuxuu qabtaa halka daadku qabadsiiyo dad itijaah lamatiin meel uma socotaan xagga caalamku isaga socdaa unbaa idana u socotaan daadxoortu halba meel bay ka laabataa meeshuu ka laabtaba uu kala laabanaya shakli ma leh form loo yaqaano male wadada hadday soo dhuubato xoorku isku soo ururaa meel buu imanaya hadduu daadku kala ballaadho wuu kala baahaya shakli ma leh wasni ma leh miisaan ma leh oo wixii miisaan lagu dagaa dhulku tagaa kuwani xagga sare bay ordayaan daadxoortu xagga sare carartaa idan kaanamaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayo cahdi inay iman doonto dadka muslimiinta iyagoo tiro badan leh ay noqon doonaan dad aan qiimo lahayn wasni lahayn afkaar lahayn mabaadi haysan waxba haysan kalbabqa dunidu waxay ku dhawaaqdana kaga daba dhawaaqa xaggii loo dhaqaaqana isaga daba socda qiimo wasniyo caalamiyana aanay ku lahaynba hadday wax sheegaan iyo hadday shiraan iyo hadday aanu midnaba macno samaynaynin su-aasha isweydiinta le markaa waxay tahay waa maxay sababtu markaasuu nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam walayanzicanna allahu min suduuri caduwikum almahaabata minkum muslimka dhabtaa waa laga cabsan jiray waayo waxaa loo yaqaana inay yihiin dad tooda ku adag saa daraaddeed bini aadamku hadduu ku og yahay qof wax iska rabi karaa ama wax iska waabin karaa ama mabda leh haddaad tahay warka lagula imanaya war macquula weeyaan oo waa qof lagu xisaabtamay laakiin haddii lagu ogyahay inaad waxba tahay war ama cidiba kuu sheegi maysa waa lagugu wadaya ama wixii la doona lagaa yeelaya ولذلك buu nebigu wuxuu yidhi walayanzicana allahu min suduuri caduwikum almahaabata minkum ilaahay wuxuu gaalada qalbiyadoodaba ka saari doonaa baqa idinka idinka baqayaan mar haddii idinka lasoo hadal qaada lagu durduriyo cidi kama baqaysa buu le baqahu wuu hadhay haye walaa yaqdifana allahu fii quluubikum alwahn idinkana qalbiyadiinna wahni baa degi doona buu nebigu ku yidhi wahnigu luga alcarabiya wahni xanuun bay u yaqaaneen garabka ku dhaco waa loo yaqaanay wahni waxaa kaloo loo yaqaanaa ducfiga nimankani luqada carbeed way yaqaaneen carab bay haayeen laakiin waxay garan kari waayeen waxaan intuu dadka ku dhaco wahni la yidhi dadkuba saanu nasakhmaya maxay yihiin dabeetana waxay idhaaheen yaa rasuul allah wama lwahnu afcarabiha wahni waa la garanayaa laakiin wahnigan dadka ku dhici doonaa muxuu yihi qaala xub dunya wakaraahiyat lmowt buu nabigu yidhi alay slam waxaa idinku dhacaya buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam adduunye jacayl iyo aakhira nacayb ama geeri nacayb nabigu wuxuu ku sheegay xanuunka rasmiga ee qofka dadka mu'miniinta a la hadhi doonaa inuu yahay masaladatan adduunye jacayl xub dunya way qofka mu'minka adduunka iyo aakhiro mu'minka saxa aakhira la wey acmaasha adduunya acmaasha aakhiro wuxuu horaysiyaa acmaasha aakhiro wax walba wuxuu ku qiimeeyaa aakhiro maxay ka goynaysaa jannay goysaa ama naar bay goysaa waa qof aragti dheer oo meel badan ka fakeraya kooda siyaasigii kama fakero dunida dowladani say noqonaysaa wuxuu ka fakeraa ilaa aakhiro dadkani maxay soo baxayaan time intervalka uu ka fakera uu ka dheer yahay bulshada tani intee bay ba'aysaa intee bay si hagaagaysaa amaa kooxdan waxaa ku dhici doonta buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam adduunyadoo ay jeclaadaan oo isku nabaan iyo geeridu aad nacato geerida waxaad u nacaysaa aakhira waxba kaaga horeyn adduunna dee lagama dhergo 2 bilyanna waa isku qabsanaysaana bini aadam 6 bilyan ee dunida ku kornool waa idin dhex maraya idan wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkan ku tilmaamaya waxa weeyaan dacfigu waa kan haddii kan loo helo kan baa wuxuu yahay maxay waa mukhadar
dhakhtarku markuu qofka rabo inuu qalo hadduu isagoo iska nool midyada ku geliyo ka war dee ma wad cararaysa waad cabaadaysa waa lagu qabqaban kari waaye suurtagal maaha laakiin si shaqo lagaaga qabto waxaa la sameeyaa maxay redovelse in lagu sooxiyo marka lagu sooxiyo bes waad isdhigaysaa shaqaa lagaa qabanaya markaa qofka mu'minka hadduu wahnigu ku dhaco suuximaadkiiba ku jira idan shaqaa lagaa qabanaya qoladii maqasyada iyo midiyaa sidatay waa ku qali karaya si fiican baa lagu qalaya waayo ma tihid qofkii dareenka lahaa ma tihid qofkii soo jeeday ma tihid qofkii caynkana caalamulislaami inta wahnigani ku dhacay ayaa la qaybqaybiyey la googooyey maalinba dowlad la dilaa maalinba mid madaxa laga jaraa maalinba mid la maagaa maalinba madaxweyne inta la qabto ciidaladxa laga dhigaa yani waa liidashanimo ku dhacday bulshadatan waa bulshadanoo aan qiimo samaynaynin aan dadnimo lahayn walidalik baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamaya walaa tahinuu walaa taxzanuu wahniyo idinku dhicin baa la leeyahay ha daciifina waaxida baan idin sheegaya waxay culammadu yidhaahdaan gabadh baa taariikhda ku gashay bay yidhaahdaan mafiiq xaaqin waxaa jirtay nebiga calayhi salaatu wasalaam masaajidkiisii gabadh baa timi qof dumara oo aan waxba haysanin masaajidka gudihiisa khaymad yar looga dhisay buul yar baa halkaasoo kale looga dhisay masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam halkaasay deganayd dabeeta iyana waxay ka fakertay inay islaamka wax u qabato qof muslim oo caatiloo meel iska fadhiya ma jiri jirin inay islaamka iyana wax tarto waxay qaadatay fikradda ah iyaduna inay qaadato aragtida ah inay ugu yaraan masaajidka nadaafadiisa iyana inay ku guulaysato markaa iyana masaajidkay nadiifin jirtay masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa u aragtay shaqaday qaban kartaa inuu yahay masaajidka nadaafadiisa inay ka adkaato habeenkii dambe goor habeena wadkii u yimi way dhimatay saxaabadii waa la qaaday waa la maydhay waa la kanfay waa la kaxeeyey xabaalaha la geeyey waa la soo aasay khalaas subaxii dambe ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam gabadhiibuu waayey markaasuu yidhi war meeday qoftii dumar ee masaajidka teganay sana ilaahay rasuulkiisii xalayta ay dhimato dee waxaanu tihi nebiga gurigiisii ugu tegey waxbaa soo kicinine dee waa soo aasnay wixii ay u baahnayd waa soo qabanay hallaa aadantumunii buu nebigu yidhi war maxay igu sheegi weydeen inay dhimatay kaalay xabaasheedii tusa buu nebigu yidhi xabaasheedii intuu tagu salaad ku soo tukaday waxay culammadu yidhahdaan gabadhan mafiiqdeedii baa taariikhda gelisay mafiiqdeedii baa ka dhigtay inuu nebi maxamed dareemay inay maqan tahay mafiiqdeedii baa ka dhigtay inuu nebi maxamed yidhaha hallaa aadantumunii oo ay ku soo tukado idan qof salbii ma jiro qof aan wax tarini bini aadamka ma jiro argagaxuna waxba ma bedelo intaad meel iska fadhiisatana maxaynu samaynaa muslimkii dee jabiyo wakaasoo dhib baa soo gaadha ama waddankii la qabsay ama halka la qabsad meel waxba ma tarto waxa wax tara qofka muslimkii markuu noqdo qof camaliya qof iijaabiya qof nolosha wax ku soo kordhinaya idan waxaa lagaa rabaa kow inaad ilaahay rumayso sabirtid kalsooni ku qabtid mabaadi'daada ku sugnaatid khaamisan waxaa lagaa rabaa inaad qof camaliya noqoto qof shaqaynaya inaad noqoto haddii qof waliba intuu awoodo u qabanayo beri horey wax waliba dhammaan lahay qof waliba qof aan wax qaban karin ma jiro war nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi balliquu canii walow aaya dadka iga gaadhsiiya aayadna ha noqotee midaan faatixada aqooni miyuudu ku jira faatixada waa imse aayadood 7 aayadood 7 aayadood waxay u baahan yihiin in maxay la gaadhsiiyo dadka kale taa macnaheed waxa weeyaan qof aan wax qaban karin ma jiro laakiin waxaa soo ururtay dadkaan camaliyiin ahayn haddii baynu leenahay gabadhe ay mafiiq taariikhda ku gashay oo nebi maxamed ku xusay oo uu leeyahay maxay i ogeysiin weydeen oo uu ka daba tegay oo xabaasheedii ku tukaday imisaynu awoodnaa markaasi laakiin waxaa islaamka soo bixiisii waxay nagu raajinaya dadkii wax awoodayo wax qaban kari la acmaashii oo dadku ay qaban kari laayeen waxaan ku soo koobaya markaa dunidan ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala isagaana gagadinaya
dadka muslimiintiina walilaahi alxamdu nicmay ku sugan yihiin laakiin in yar bay u baahan yihiin nicmay ku sugan yihiin oo iimaan bay haystaan nicmay ku sugan yihiin oo dhulka ilaahay abuuray dhulalkii ugu fiicnaa bay haystaan nicmay ku sugan yihiin oo macaadinta iyo enerjiga dunida lagu hayo hadday mid cadceedeed tahay iyo hadday mid dhul ku jirayba tahay kii ugu badnaa bay haystaan nicmay ku sugan yihiin oo bashariyada marka la eego da ahaan da'da ugu fiican bay joogaan oo dhallinyarada nicmay ku sugan yihiin oo waa bashar bilyan iyo badh ku dhodhow oo tirada intaasi leeg nicmay ku sugan yihiin mantiqada ilaahay dejiya mantiqo istaraatiijiya oo dunida dhammaanteed isku xidha xoogaaga qaraasinada Soomaaliyeed baa qaaq dunida ka samaysay maxaad u malaynaysaa inta caalamul islaami dago hadii islaamku xukumi karayo nicmay ku sugan yihiin laakiin waxa ka maqan tartiibul umuurkii baa ka maqan waxa ka maqan gurigooda inay hagaajiyaan uma baahna cid kale laakiin waxay u baahan yihiin gurigooda inay hagaajiyaan waxay ku hagaajin karaana waa hadday u soo noqdaan islaamnimadooda iyo diintooda hadday ku soo noqdaan marka waxaan ku soo koobaya insha Allah ta'ala si fursada ku isweysiisataan u heshaan ilaahay aan ka cabsano subhanahu wa ta'ala murugo iyo baabkana iska dhaafno kalaam badan oo ku saabsan xusniga iyo murugada iyo shariicada qiimaha u qaybiyo waxaas oo iska soo dhaafaya laakiin waxaan ku soo koobaya qofka mu'minka inuu noqdo qof amalna leh rumaysan dunida in ilaahay wado isagana wixii laga rabay in lagu arko wixii laga nahiyayna inaan lagu arag salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh جزا الله عنا خيرا شيخنا الفاضل الشيخ مصطفى حاج إسماعيل intuu noo soo jeediyey oo kalimaad ah ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu inagu anfaco subxaanahu wa tacaala isagana ilaahay ugu daro maalinta qiyaamo miisaankiisa xasana